Bal qiyaas haddii gobolka Bay ee ku yaala koonfurta dalka uu noqon lahaa dal madax bannaan balse ku dhex yaala gudaha dalka Soomaaliya. Marka ugu horreysa ee arrintan la maqlo, waxay u muuqan kartaa wax aan macquul ahayn. Maantase waxaa jira guud ahaan 3 waddan oo gebi ahaan dhaca gudaha dalal kale. Sidee ayuu dalku noqon karaa mid uu hal dal oo keliya gebi ahaanba ku hareeraysan yahay? Maxaase u diidaya dalka weyn inuu si fudud u qabsado ama ugu daro dalkiisa? Xaaladdan waa mid loo yaqaano enclave state ama dal madax bannaan haddana dhaca gudaha dal kale. Waxaana muuqaalkan guud ahaan uga hadli doonaa sababta 3dan dal ay u dhacaan gudaha dalal kale iyo waxa ka reebaya inay ku biiraan ama ka mid noqdaan dalalkaas ku hareeraysan. Ka hor intaanan u guda gelin mowduuca, waa inaynu fahanaa dalka dhab ahaantii noqon kara enclave state ama dalka aan noqon karin. Haddii dal uu leeyahay xeeb uu badda xuduud dhinac kale leeyahay, looma tixgeliyo enclave state ama dal gebi ahaan dhaca gudaha dal kale. Tusaale ahaan, dalka Portugal waxa ay xuduud dhuleed la leedahay hal dal oo keliya, waana dalka Spain. Si kastaba ha ahaatee, dhinaca kale waxa ay leedahay xeeb dheer oo ku taalla badweynta Atlantikada. Sidaas darteed, Portugal ma aha enclave state ama dal dhaca guud ahaan dal kale, maadaama ay marin badeed leedahay. Waxaana enclave dhab ahaan loo aqoonsan karaa dal aan lahayn wax xeeb ah, isla markaana xuduudiisa oo dhan uu la wadaago hal dal oo keliya. Haddaba aynu eegno 3dan dal ee keliya maanta dunida ka haray ee dhaca gudaha dalal kale. Lesotho waa dalka ugu weyn ee dunida gebi ahaan dhaca gudaha dal kale. Dalkan waxaa gebi ahaanba ku hareeraysan dalka Koonfur Afrika, wuxuuna la leeyahay dalka uu gudihiisa dhaco ee Koonfur Afrika xuduud dhan qiyaastii 687 mayl, una dhiganta 1,106 kiiloomitir. Dadkiisu waxay gaarayaan ku dhowaad 2.1 milyan, waxaana 99% ka mid ah ay yihiin qowmiyadda Basotho oo ah bulsho ku nool buuraha dhaadheer ee dalkan dhaca ee loo yaqaano Maluti Mountains. Bad ahaan dhulkan waa mid aad u yar, waxa uuna leeyahay guud ahaan bad dhan 30,355 kiiloomitir laba jibaaran, waana mid ka mid ah dalalka ugu yar dhul ahaan qaaradda Afrika. Lesotho waxa uu xubnimadiisa ka qaatay boqortooyada Ingiriiska sanadkii 1966 xilligii gumeysi ka kicinta qaaradda Afrika, waxa uuna ilaa maanta haystaa madaxbannaanidiisa. Inkastoo dalkan uu leeyahay kheyraad dabiici ah oo qiimo leh sida biyaha macaan oo ay Koonfur Afrika si weyn uga faa'iideysan karto, haddana waxaa si dabiici ah u difaacaya dhulkiisa buuraha ah iyo isku duubnida qowmiyadiisa, maadaama dadkiisu 90% ay yihiin qowmiyadda Basotho. Haddaba maxaa diidaya in Koonfur Afrika ay qabsato dalka Lesotho? Xilligii nidaamkii midabta koorka ama nidaamkii cunsuriyadda ee Koonfur Afrika ka jiray intii u dhaxaysay 1948 ilaa 1994, xilligaas oo dadka caddaanka ah ay awoodda dalka haysteen halka dadka madow xuquuqdooda si weyn loo luunsanayay. Koonfur Afrika waxay horeba ula kulmaysay cadaadis iyo cambaarayn uga imaanaysay dalal badan oo caalamka ah. Sababtaas awgeed ma aysan doonayn inay xaaladda uga sii darto iyagoo si buuxda u qabsanaya Lesotho, maadaama tallaabadaas ay keeni lahayd cambaarayn caalami ah iyo cunaqabatayn hor leh. Intaa waxaa dheer, duulaan lagu qaado Lesotho ma noqon lahayn hawl fudud. Dalkan intiisa badan waxa uu ka kooban yahay buuro dhaadheer, dooxooyin qoto dheer iyo dhul adag oo aad u adkeynaya dhaqdhaqaaqa ciidamada. Sidaas darteed, weerar kasta waxa uu noqon lahaa mid qarash badan, waqti dheer iyo ciidamo badan qaata, iyadoo aan la hubin in si fudud lagu guuleysan karo. Arrimahan oo isbiirsaday ayaa ka mid ahaa sababihii Koonfur Afrika uga baaqsatay inay Lesotho ku darto dhulkeeda. Waxaa intaas dheer, haddii Koonfur Afrika ay qabsan lahayd Lesotho, waxay heli lahayd bulsho tiro badan oo isku qowmiyad ah, taasoo saameyn weyn ku yeelan lahayd dheelitirka siyaasadeed ee dalka. Arrintan ayaa ahayd mid ay aad uga walaacsanaayeen dadka awoodda siyaasadeed haystay. Sidaas darteed, waxay u arkayeen inay ka wanaagsan tahay in Lesotho uu sii ahaado dal madax bannaan. Maanta Lesotho iyo Koonfur Afrika waxay leeyihiin xiriir degan oo saaxiibtinimo ku dhisan, waxaana Lesotho iyo Koonfur Afrika ay wadaagaan mashruuca Lesotho Islands Water Project, kaasoo biyaha Lesotho loogu gudbiyo dalka Koonfur Afrika. San Marino waa dalka labaad ee ugu weyn dalalka enclave-ka, waana mid ka mid ah wadamada ugu faca weyn qaaradda Yurub. Dalkan yar waxaa gebi ahaanba ku hareeraysan dalka Talyaaniga. Si ka duwan Lesotho, San Marino wuxuu leeyahay taariikh madax bannaani oo soo jirtay qarniyo badan. Wuxuu soo baxay xilli Yurub ay ka jireen magaalooyin madax bannaan iyo boqortooyooyin yaryar. Markii dalalka waaweyn ee maanta la yaqaan sida Talyaaniga, Faransiiska iyo Isbaanishka ay bilaabeen inay midoobaan oo xoogeystaan, San Marino wuxuu si adag u ilaashaday madax bannaanidiisa.
Dalkan wuxuu xorriyadiisa ku ilaashaday diblomaasiyad taxaddar leh, wuxuu la samaysan jiray xiriir wanaagsan wadamada kale, balse iskama gelin tartanadii iyo dagaaladii quwadaha waaweyn. Sidoo kale weligiis ma uusan doonayn inuu ballaariyo dhulkiisa, wuxuuna ku qanacsanaa buuraha uu asal ahaan ku dhisnaa. Xitaa Napoleon Bonaparte ayaa mar u soo bandhigay inuu siiyo dhul dheeraad ah intii uu ku jiray dagaaladiisii waaweynaa. Hase yeeshee San Marino wuu diiday, isagoo sheegay in madax bannaanidooda ay ku ilaalinayaan inaysan qaadan dhul uusan si sharci ah u lahayn dalkaas. Siyaasadooda taxaddarka leh, burahooda difaaca dabiiciga ah, iyo xaqiiqada inaysan lahayn muhiimad istiraatiiji ah ayaa sabab u noqday in aan lagu soo duulin, inkastoo Yurub ay marar badan gashay dagaallo waaweyn. Qarnigii 19aad, San Marino wuxuu heshiis la saxiixday boqortooyadii Talyaaniga. Markii boqortooyadaasi isu beddeshay Jamhuuriyadda Talyaaniga ee maanta jirta, heshiiskaasi wuu sii jiray wuxuuna dammaanad qaaday madax bannaanida San Marino, waana mid shaqaynaya heshiiskaasi ilaa maanta. San Marino maanta waxaa ku nool qiyaastii 33,000 oo qof, waana dal madax bannaan, haddana dhaca gudaha dal kale. Dalka saddexaad uguna caansan waa Vatican City. Ma aha oo keliya inuu ku dhex yaallo Talyaaniga, balse wuxuu gebi ahaanba ku dhex yaallaa magaalada Rome. Vatican City waa waxa keliya ee ka haray dhulkii ballaarnaa ee loo yaqiin Papal States, oo ahaa dhulal waaweyn oo qarniyadii dhexe si toos ah u maamuli jiray baadiriga iyo kiniisadda Kaatooliga. Muddo kadib dhulkaasi si tartiib tartiib ah ayuu u yaraaday ilaa uu ku ekaaday Vaticanka maanta. Maanta Vatican City waa dalka ugu yar dunida, xuduudiisu waxay dhirir ahaan tahay qiyaastii 2.1 mayl una dhiganta 3.4 kiiloomitir, taasoo ah xuduudda ugu gaaban ee dal madax bannaan leeyahay. Waxaa si joogto ah ugu nool wax ka yar 1,000 qof, waxaana maamula baadiriga. Madax bannaanidiisana waxaa saldhig u ah kaalintiisa ah xarunta ugu sarreysa ee kiniisadda Kaatooliga. Inkastoo Rome iyo kiniisaddu ay lahaayeen taariikh dheer oo mararka qaar muran badan leh, Vatican wuxuu sii ahaanayaa dal madax bannaan sababo la xiriira qiimaha diimeed iyo dhaqameed ee uu leeyahay. Si ka duwan San Marino, markii Talyaanigu midoobay qarnigii 19aad, wuxuu qabsaday magaalada Rome iyo dhulkii Papal States. Baadiriyadii xilligaas waxay diideen inay aqbalaan maamulka Talyaaniga, waxayna isku xireen gudaha Vaticanka iyagoo isku tilmaamay maxaabiis. Sanado badan ayay diideen inay aqoonsadaan in Rome ay ka tirsan tahay dalka Talyaaniga, maadaama magaaladaasi ay qarniyo badan iyagu maamulayeen. Waxaa xiiso leh in madax bannaanida Vaticanka uu si rasmi ah u aqoonsaday Benito Mussolini sanadkii 1929. Waxaa la saxiixay heshiiska Lateran, kaasoo dammaanad qaaday in Vatican City uu noqdo dal madax bannaan oo Talyaanigu uusan faragelin ku samayn karin. Waxaa la rumaysan yahay in Mussolini uu tallaabadan u qaaday si uu u kasbado taageerada shacabka Talyaaniga oo intooda badan ahaa Kaatoolig. Saddexdan dal ayaa maanta ah dalalka keliya ee dunida ka haray ee si buuxda ugu dhex yaalla hal dal oo kale. Isku darka taariikhda, juquraafiga iyo dhaqanka ayaana u suurto gelinaya inay ilaashadaan madax bannaanidooda. Inkastoo caqliga siyaasadeed iyo khariidadaha adduunku ay u muuqdaan inay sheegayaan inay ahayd inay muddo hore lumiyaan xorriyaddooda, ilaa hadda ma jiraan wax muujinaya in xaaladda gaarka ah ee saddexdan dal ay isbedeli doonto mustaqbalka dhow.